marka hore aad baad mahadsantihiin sida nagu soo dhaweyseen magaaladan Kalkhalifa barnaamijkan emergency-ga ama gargaarka degdega ah waxa lagu talagalay 50 qoys oo ka tirsan marka magaaladan Kalkhalifa in lagu caawiyo qadar lacag lagu caawiyo si ay marka xoolo ugu iibsadaan ama ganacsiyo ugu bilaabaan ay marka ka heli karaan nolol maalmoodkooda ka heli karaan ay ku noolaan lahaayeen iyaga iyo qoyskoodu laba marka qoryaale oo aan ka dooranay Kalkhalifa iyo meesha gebagebo labada meelood waxaan ku dooranay marka aragnay baahiyaha ka jira iyo sida ay abaartu saameysay inaan ka doorano 100 qoys waxaan ku nimay qiimeynay labada meelood kadib marka qiimeyn kadib waxaan la kulanay markii aan wixii soo helnay gudoomiyaha gobolka Togdheer muxuu ahaayay hay'adda Neeraad ee u qaabilsan koortaga masiibooyinka iyo abaaraha ee gobolka Togdheer iyo muxuu ahaayay maamulka degmada qoryaale bile inta kadib marka waxaan sameynay nidaamkii lagu qaybin lahaa waxay magaalada marka qoryaale ama Kalkhalifa ay u heshay marka 50 qoys laga doortay $15,000 qof kasta waxa loogu diray marka si loo hubiyo in qofkii lacagtu ay gaadho loo xisaabtami karo anaga loo xisaabtami karno in idinkeena soo gaadhin loo xisaabtami karo qof kasta waxa loogu soo diray nambarkiisa uu saad ku leeyahay saadkaasana ama nambarkaasana marka hay'adda UNDP oo bixinaysa deeqdan marka iyaanagu fuleeyna halkaas marka laga wada xisaabtami doona waxa rajeynaa marka lacagta waxa la idin siiyay maadaama xoolihii idinka go'aan isla markaana imakaani roobku daay isla markaana hadda de xoolo suuq la geeyaan jirin in $300 qof kasta la siiyay 50 qoys ka mid ka in loogu talagalo isla markaana ay ku isticmaalaan qofkii xoolo ceeshanaya xoolo ku iibsanaya iyo qofkii ganacsiga ku bilaabayaaba intaba marka qofku inuu wax ku bilaabo isla markaana wixii loogu talagalayo aynu ilaalino ka faa'iideysano ay noqoto kulay waxa weeyaan anagu waxa weeyaan taasaanu keenay laakiin saadee ka faa'iideysataan dadka kale aan chance ku helin ee faraha badan le maanta jooga iyaguna insha Allah marka Ilaahay wuxuu qadaray way iman doonaan waana muxuu ahaayay codsiyo kale in la kordhiyo maadaama suxna abaartu saameysay waanu sii wadi doonaa dawladda iyo hay'adaha kalena waanu gaarsiin doonaa sidoo kale waxa muhiim ah marka 50 qoys anagu waxaan ku dooranay 50 qoys ugu nuglaa ugu dayacnaa ayay markaa joogay Kalkhalifa oo anagoo kaashanayna gudida ay leedahay Kalkhalifa iyo maayarka iyo markaa bulshada ku dhaqan markaa Kalkhalifa ayaanu ku dooranay 50 qoys markaa insha Allah waxa rajeyn doonaa markaa inay ka faa'iideysan doonaan oo muxuu ahaayay ay wax u tari doonto intii markaa itaalkayaga weeyeen taasi waxa kale oo idin sheegana markaa maadaama dadku inta ugu badan marka xooluhu ay barakacaan qof waxa weeyaan wuxuu baahan inta badan tacadiyadaas waxa weeyaan waynu ognahay oo dadkeenu dhaqan baynu leenahay waxyaabo dhaqan ku xidhan baa jiro oo u baahan in la ilaaliyo waxyaabahaas waxa weeye tacadiyada lagu sameeyo marka dad ama ragga lagu sameeyo dumarka lagu sameeyo gaar ahaan waxa dumarka loo ilaalinayaa in loo taargereeyo ama loo abaariyo waxa weeyaan dumarku markasta raggii way uga nuguliin oo waxa weeyaan ma kufsigu xoog buu batay marka la eego wadanka hadda gobol walba tagto kufsigu waa kaas ugu badan markay abaaruhu dhacaana waxa kale oo imanaya dilkiyo kale oo imanaya qoysku isqabsan karo kale marka xilliyada abaaruhu jacaan iyo dhibaatooyinku inay dadku isku dul qaataan oo aan la iskarino la isilaaliyo ayaa muhiim ah waxa kale oo imanaysa maxaa dumarkii loogu dhiibay lacagto iyaga loo qoray waxa weeyaan maadaama imika ay jirto baahida inta ugu badan hooyooyinka ayuunba gacanta ku hay qoysaskii saadaraadii hadii raggii maanta saadka loo sameeyay loogu diri lahaa waxaaba suurtagal noqon kartaba ma oran karna rag oo dhan way cunayaan oo qaad bay sanay laakiin bar kamida waxa laga yaabaa inaan qoysaskii gaadhin saadaraadii hooyooyinka waxa lagu aaminay inay intaa u isticmaalayaan si loogu talagalay isla markaana qoyskii ay uga faa'iideynayaan marka insha Allah Ilaahayna khayr ban ka rajeynaa inaynu intaana ka faa'iideysano si aan ugu talagalay ku heshiinay inay uga faa'iideysataan Ilaahay baa mahadle halkan waxaan ugu mahadnaqayaa hay'adda Yuvenco oo $15,000 konton qoys oo $300 geedkan hoostiisa ku bixisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Ilaahay ajri baa kaga helaysaan miisaanka xasanaadkana ku soo bixiyay Ilaahay ha ugu daro mahad ka bacdi waxaan codsanaynaa in
waa aragtaan waxa dad halkaas soo fadhiya waa dadkii xooluhu ka baxeen inaa awoodda saartaan sidii kotokaa ay u sii kordhin lahaydeen ee u sii labalaabi lahaydeen ee u sii saddexlaabi lahaydeen dadka kal khaliifana waxaan leeyahay haddii sidii loogu talagalay u isticmaashaan $15,000 baa geedkan quraca hoostiisa laydinku siiyey haddaa habar islaam waleeba odagaaga aad tidhaahdo qaad ku doono waxba iman maayaan laakiin sidii loogu talagalay ee laydinku ballamiyey u isticmaala waa nafaqo tii ku baacad mushtareyn ama ari siiso ama wax kala siiso ku baacad mushtareynaysaa waa okay laakiin qaad iyo sigaar haddaa raggiina u siisaan ilaahay baaba xaggiisa idinkaga joojinaya dadkiina jilicsan siista carruurta ku koriya wax nafaqo leh u siiya waxaa arki doontaan iyadoo maanta 15 baa laydi siiyey $100,000 geedkan quraca hoostiisa laydinku keenay ilaahay baa keenay dad baana ka shaqeeyey inay lacagtan halkan timaado ilaahay qadar ilaahay weey dadna sabab dad baa ka shaqeeyay in halka idinku timaado waxaan ku soo gunaanadayaa oo aan mar labaad u mahadnaqayaa hay'adda Yuvenco aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa waanu idinla shaqaynaynaa waanu idinla soo dhawaynaynaa tallaabo kasta oo la qaado waanu idinla qaadaynaa ilaahay baa mahad leh halkan anaku maxay ahayd waxaanu nahay dadkii ay xooluhu ka baxeen haddii ay xooluhu ka baxeen baahi xadad le baan ugu dhacday reer waliba gurigii uu maxay ahayd xooluhu kaga baxeen buu joogaa waxa laalay waxa dunyada wuxuu kaga guurguurtay wuxuu kaga guuray midna wuu waayay haraad baan ugu abxun haddii aan ilaahay naxariistiisa aan nagu kaalmayna hadeertoo dadka yaga naf laguma soo gaadhin maalinkan maanta reerkii haystay 10 neef ama 20 neef ay u hadhay wixii ay haysteen waxba ugamay soo bixin waxay qalaan iyo waxay iibsadaan midna noogamay soo bixin baahidii sidii bay noo haysataa sidii ayay baahidii noo haysataa hadeerta kontonka reer hadeerta oo lacagta lagu soo kaalmeeyay oo maxay ay tahay mooyana dadka kale wixii sidii bay baahidii u haysataa dadkuna dadkii uu ka badan yahay uu ka xadad badan yahay dadka baahidii haysataa marka ilaahay baa mahad leh hadeerta waxaanu doonaynaa in aad iyo aad naloogu soo kordhiyo oo baahida ilaahay baa baahi bi'iye uu dadka nala soo kaalmeeyo oo tii hore waa mahad waanu ku shukri naqnay waanu ku mahad naqnay hadeerta in naloo soo kordhiyo oo maxay tahay ay dadkii hay'adihii iyo dawladdii intiiba ay soo kaalmeeyaan ayaanu u baahanahay halkan aan iminka joogno haraad baan haysta roobku maxay tahay si xadadna noomu herin baraaga kama qodna biyo uma aasna riig melaha ceel noogama dhowa gaadiid aanu biyihii iminka higlo iyo qoryaale oo biyo noo soo joogan aanu ku doonan lahayn xitaa iyo ma haysano marka haddadan oo roobku xalayta uu daayay bay maanta inoogu haraad badan tahay marka waxaanu u baahanahay in macal biyo naloo sameeyo oo raashinka iyo biyaha wax walba naloo keenaan u baahanahay